وعنا ونكسن داودية waxaan idin la wadaagayaa muuqaal dareele oo 24 saac ugu dambeysay baraha bulshada aad u qabsaday waa muuqaal cid kasta oo dareen islaamnimo ama mid Soomaalinimo uu ku jiro ay ka damqanayso waa aad daawo doontaa oo aan ku fasaxi doonaa muuqaalka hadii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato page-ka YouTube-ka Amira Suleymaan fadlan falowde oo inagu soo biir ina soo raac like-tan hay naga la baqiir waxay noo tahay sharaf iyo dhiirigelin sidoo kalena muuqaalka share gare oo gaarsii saaxiibadaada aad iyo aad ayaad u mahadsantahay muuqaalkan aad arkaysaan oo hareertayda ka muuqdo waa muuqaal runtii dareen ahaan aniga qof walba oo Soomaaliyeed ama dareen danqasho uu ku jiro aad u saameynaya waa wiil yar oo Soomaaliyeed sidoo kalena lixaad kala waa inaan yar oo soo karaya oo waxa uu leeyahay qaybta hoose ee jirkiisa waxaan filayaa inay tahay lugta waxa uu la socdaa arday u socota iskuul waxa uu rabaa inuu san ka harin oo ardaydaas uu raaco sidoo kalena uu la soo qaato dirsiga waxbarashada runtii awood uma laha inuu istaago sidoo kalena ma haysto gaari ama wax uu ku socdo oo loogu talagalay dadka lixaad kala sidoo kalena la qaybaha jirka hoose ama oo loogu talagalay gawaarida dadkaas lagu qaado waa uu daba socda ardayda oo ka harimaayo waa uu daba gurguuranaya ama sidoo kale waxa uu ku socdaa afarta waaxood oo jirkiisa waa lugaha iyo gacmaha waxa uu doonayaa inuu la gaaro halka iyaga ay socdaan oo ah goobta waxbarashada ee iskuulka waxa uu soo libistay sida ardayda ay u soo libistaan oo wuxuu wataa dareeskii loogu talagalay iskuulka waxa uu doonayaa inuu san ka harin ardaydan waa uu daba lugaynaya ilaa ay iskuulka ka galaan runtii waa muuqaal aad iyo aad cajiib oo sidoo kalena shakhsiyan aan dareenkayga aad u bedelay waxa uu doonayaa inuu san ka harin waxbarashadan waxa uu leeyahay hami waxa uu noloshan ka leeyahay mustaqbal fog waxa jira kuwa isaga la daa laakiin aan lahayn rajada maanta isaga uu leeyahay oo ah inay ku hamiyaan inay waxbarasho aadaan ama ay bartaan qaybo kamid ah cilmiga dunida maanta lagu dhigo waxa uu inankan muujiyay inay tahay nolosha si kasta oo aad u leedahay qaybaha kamid ah jirkaaga runtii inay tahay maskaxda wax walba waxa hago ee qofka bini'aadanka uusan marnaba liciifinin hamigiisa waxaan rajaynayaa inankan sida uu libisan yahay uu rajaynayaa mustaqbal ifaya maskaxdiisana aysan laciifka u ahayn oo uu doonayo inuu higsado meel sare in sidan maanta hamigiisa uu dhisan yahay maskaxdiisana ay u caafimaad qabtay uu doonaysa inay wax ku soo kordhiso sidoo kalena uu wax barto inay u hagaagsanaato nolosha sidoo kale tan caawimaad buuxda uu helo cid ka garab qabato sidoo kalena uu iibiso gawaarida dadka lixaadkooda dhameystiran ay ku socdaan hadii aad inta la soo gaartay waxa tahay saaxiib wanaagsan waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka share gareyso aadna gaarsiiso saaxiibada si wiilkan yar ee dhalaanka ee soo karaya ee lixaadkiisa uusan dhameystiran oo uu helo caawimaad aad iyo aad ayaad u mahadsantahay